السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله هذا اسكسور لaabanay mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan hadaad channelku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa hala codsi subscribe like share haddii aad noo joogtin waan kusoo dhaweynayaa asxaabay channelkan waa channelkeeni waxaan rabaa inaad kor usoo qaadaan waxaan idin hayaa sheekooyin aad u fara badan oo ma aragtay ay dad maxay ahayd oo subscribe-kayga ay la soo wadaageen sheekooyinkaas baan rabaa inaan idinla wadaago idinkana marka horta bal channelka la kala kiciyo baryahan xoogaa waa idinka caajisay family iyo howl iyo waxaas waa garan kartaan maanta waxaa jirta qiso ay gabadh la soo wadaagtay baan rabaa inaan halkaan idinkaga soo gudbiyo qisadaas oo qiso aan aad uga yaaba aniga xitaa gabadh iyo wiil isqaba Soomaaliyeed qurbaha dhinac ka joogeen ma raba inaan wadanka carabaabo marka gabadhu waxay go'aansatay inay la wadaagto bas gabadhii iyo wiilka markay isqabeen muddo 6 bilood ay isqabeen awlaad ilaahay ma kala siinin wiilka ayaa familkiisa aad pressure ay soo saareen oo leeyahay maxay tahay gabadhan wax siyaado ma jirto miyaa maxay tahay cilada xagee ka socotaa warniyo Soomaaliya iska dhaafno waxaas waa laga ilbaxay adduunku waa horumaray qofka hadduu wax dhalaay isagaa dhalaay xoogaa inaad ma aragtay bushgaraysaan iska daaya balantas waa ceeb goormaa laga tegay ma dhasha naagta iyo uur ma leedahay iyo waxaas iska dhaaf yaa akhay calaa ay taxaal warka marka halkaas noo marayso gabadhu waxay tiri ninku waaba igu soo jeestay abaayo waxaan rabaa aniga iyo adiga inaan isbaarno because hadda 6 bilood isqabnaa wax awlaadana ma hayno ciladu waxay tahay inaan ogaanaa saas miyaaha bal xoogaa aan sugno mayma sugayno dhahay waa baxeen dhakhtaraa la tegay balnaa la samaystay waa la qaabilay ballantii marka waa la baaritaana lagu sameeyey labadoodiiba markii baaritaanka lagu sameeyey iska baxaa leh annagaa idin soo wacayna wixii jawaabta annagaa idin soo yeeraynaa la yiri way baxeen 2 beri kadib waa la soo wacay waxaa la dhahay haye jawaabtiyaa laydin hayaaye imaada alla qof walba kurbo jag gabadhu waxay ama adiga cilada noqotaa iyadaa horta dumarkeena Soomaalida waxaan ka yaabay iyagaa saar culayska in wax ka khaldayin inta badan laakiin ragga xitaa culayska wuu yeelan karaa taa qalbigeena geliya bal horta bas waa la baxay ballantiyaa la tegay soo fadhiista haye dhakhtarkaa la hadlay labadooda wuxuu yidhaaye jawaabtiyaa idin haayaa maanta waxaan rabaa inaan go-aanka idin tuso haye go-aanka waxaa fiican tihiin baa layidhi laakiin adiga wiil gabadha qaba adiga ayaa maxay ahayd oo waxantaadu daciif tahay marka adiga xitaa waa kasoo kabsan kartaa haddii aad daawooyin iyo wax qaadato oo soo fiicnaanaysaa wiilka indhuhu taagay maxay tahay waxaa sheegaysa ayada waa aniga ma aha adiga waayaa la yiri kaale warqadii indhaha laga geli waa tanaa adiga waa waxa waxantiisa daciif ka tahay marka daawooyin lagu siinayaa daawooyinkaas kadib waxaa laga yaabaa in aad wax dhasho ninku waa qeyliyey waa xanaaqay ilaa warqadda hala itusuu yiri baaritaanka lagu sameeyey warqadii aragtisi waa tanaa haleel arag cilada adiga waaye laakiin dhib mal waxba ha welwelin daawooyinaa lagu siinayaa waa fiicnaanaysaa waxna waa dhalaysaa gabadhi shibbay iska tiri waa ahaamustay waa soo baxeen gurigaa la imaaday waxay tiri abow soo dhawow aniga waa kaa tegayaa marka aniga waa kaa tegayaa because haddii aniga ciladan maanta la igu sheegi lahaa waxaa idhihireed iska bax adiga waaya ciladee marka waa kaa tegayaa maca salaama hana iga xumaanin shaladaa isugu diiday adaa degdegtay haddana aniga waa iska sii baxayaa furiinaan kaa dalbanayaa qisadu waa dheer tahay ma yarayaa qayb labaaday leedahay sookada dambe aa idin sheegaya inta ka dhiman waa idin dhammaystira waa arrin yaabkeeda leh qiso argagaxeeda wadato waaye haddaad channel ku cusub tahay subscribe like share haddaad nala joogtana welcome aan kugu soo dhaweynaynaa qisada maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa maalinta idiin wacnaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu